الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدونك قولها شعبك اللي بعنا شرفت له مدن يالي مرويين وحنينك السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجهرين وحن أمهد علينا يا قدونك قولها شعبك إياه اللي بعنا شرفت له codka kalsoonida ee aad si buuxda ii siisaan taariikhda markay ahayd 23 September 2020 waxaan ku faraxsanahay in aan mar labaad idin hor imaado anigoo idin horkeenaya golaha wasiirada cusub iyo barnaamijka xukuumadda. waxaan aaminsanahay inaad siin doontaan kalsoonidiina si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. wadatashi dheer kadib waxaan soo xulay golo wasiir oo leh karti hufnaan iyo khibrad ay ku gutaan mas'uuliyadooda. sidoo kale mudan yaali marwooyin waxaan idiin soo gudbinayaa barnaamijka xukuumadda oo aan aaminsanahay in ay ka turjumayso marxaladda dalka marayo ee waqtiga wadaguurka. barnaamijka xukuumadda waxaa saldhig u yahay qorshe howleedka xukuumadda oo ay soo diyaarin doonaan golaha wasiirada marka ay guda galaan waajibaadkooda. barnaamijkani wuxuu qeexayaa arrimaha hortabinta u leh xukuumadda sida dardargelinta doorashooyinka, sugidda amniga guud, amniga doorashooyinka, dhab u heshiisiinta, xakamaynta cudurka COVID-19-ka, tayeynta hay-adaha caafimaadka, horumarinta cadaaladda, dowlad wadaagga, la dagaalanka musuqmaasuqa, kobcinta dhaqaalaha, kordhinta adeega bulshada iyo xuquuqul insaanka gaar ahaan xuquuqda dumarka iyo carruurta. iyadoo laga ambaqaadayo go'aanadii hordhaca ahaa ee lagu soo gaaray shirarkii dhuusamareeb 1, 2 iyo 3 laguna soo gunaanuday magaalada muqdisho 17 September 2020 ayaa golaha wadatashiga qaranka ku heshiiyeen mabaadi'da guud ee doorashooyinka dalka. heshiiska golaha wadatashiga qaranka ee doorashooyinka waxaa kulan wadajir ah ku ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 26 September 2020. heshiiska doorashooyinka ayaa lagu qeexay qaabka doorashooyinka, ergooyinka, deegaan doorashada, qoondada dumarka iyo inay doorashooyinku ku dhacaan waqtigooda. sidoo kale golaha wadatashiga qaranku waxay 1 Oktoobar 2020 soo saareen heshiis habraaca doorashooyinka kaasoo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka, deegaan doorashooyinka, astaynta kuraasta golaha shacabka iyo habraac u gaar ah doorashooyinka Somaliland. waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka iyo deegaan doorashooyinkuba ka horumarsan yihiin marka la barbar dhigo doorashooyinkii 2016 taasoo gogol xaar u ah in 2024-25 dalku ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod hadduu ilaahay raalli ka noqdo. si ay u dhacaan doorashooyinka nabad ah waqti loogu talagalay waxay xukuumaddu xoojinaysaa amniga guud gaar ahaan goobaha doorashooyinka. haddaba waxaa lagama maarmaan ah in xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed iska kaashadaan sugidda amniga gaar ahaan xilliga wadaguurka. sidaa awgeed xukuumadda iyadoo la kaashanaysa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay dardargelinaysaa dadaalada dhamaystirka dib u eegista qorshaha amniga ee xilliga wadaguurka. waxa aana shaki ku jirin in fulinta qorshahan uu siin doono fursad shacabka Soomaaliyeed, hay-adaha dowladda, ciidamada amniga ay noqdaan kuwo si wadajir ah u suga xasiloonida nabadda dalka. xukuumaddaydu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa wax ka qabashada xadgudubyada loo geysto carruurta iyo dumarka oo aan dhowr jeer ku celceliyey. sidoo kale arrimaha diiradda saari doonto waxaa ka mid ah
xoojinta wada shaqaynta hay-adaha ku lug leh difaaca iyo ilaalinta xuquuqda dhibanayaasha gaar ahaan dumarka iyo carruurta. ugu dambeyn waxaan eebba ka baryayaa in uu nagu guuleeyo gudashada mas-uuliyadda iyo waajibaadkan naloo idmaday dalkeenna iyo dadkeennana nabad iyo barwaaqo gaaraan. guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh waxaa mar kale idinkaga codsanayaa in aad kalsoonida siisaan xubnaha golaha wasiirada ee magacaaban iyo barnaamijka xukuumadda. waana mahadsantihiin wabilaahi towfiiq.